maamulka dib isugu noqonaya gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa kormeerkan waxa uu ku tagay xirooyinka barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Beledweyne kormeerkan gudoomiyaha arrimaha bulshada uu ku tagay xirooyinka barakacyaasha Macruuf Shabeelow iyo Farjano ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xili habeennimadii xalay heed gudaha magaalada Beledweyne ay ka dayeen roobka guga oo ka curtay gudaha dalka Soomaaliya Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa wuxuu u gurgalay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ugu horeen dadka barakacyaasha ayaa ka codsaday hay'adaha samafalka ay ka shaqeeya gudaha magaalada inta kadib marka uu soo adlaaday kormeerka ayaa Sheekh Xuseen Cismaan Cali wuxuu hay'adaha samafalka ay ka howlgala magaalada Beledweyne ugu baaqay inay gargaar ay la gaaraan dadka barakacyaasha maadaama ay soo food saartay xaalad nolol xumo laakiin waxay taagan tahay soona lagu jiraa bishii barakaysanada lagu jiraa waliba naxariistaasi bixayso 10kii hore tii dambi dhaafkan gelina sadaqada xilligeedii la jooga waxaan ka hadlaynaa dadka aan furi u baahan wabada soomiyi aan furi u baahan nolol u baahan ilmaha daryeel u baahan marka wadaaraas waxaan leeyahay inuu ka faa'iideysana fursadan aan helay oo beerula iyo dacad wadani isiyeen inay doorkoodii aan helay hay'adaha samafalka waxaan sheegnayba waa uma celinayna ayagana waxaan rabaa doorkoodii inaan helno cid kastoo wax qabatane sida kuwaan aan u sheegayna laakiin hatta dadana soo marin baa anaga noo imaanano waxba ama iska dhuunto meel wax iska geey anaga ma sheegi karno laakiin cid wax qabato waa sheegayna DRC wax qabatay waa sheegayna lacag bis waxbay bis waa sheegayna waa wixii aan aragno waan soo gaarsiiyay waxaan qabanayna dhaheen RC wax qabatay waa sheegayna waxaan u sheegayna waxna way noo sheegeen way soo gaarsiiyeen laakiin hadda jooyida yaadiyaysa wax soo gaarsiiyay hiba wax qabatay waana soo gaarsiiyeen safa wax qabatay intaas oo musqulaan dhisay geeska la soo gudbay waa sheegayna laakiin sayidina soo marin aysan anagana soo marin oo aan ka warqabin waxay qabanayaan ma sheegi karna markaa macnaha waxay macnaha ayagoo wax qabanayaan macnaha waa ku celcelinaa xafiiska arrimaha bulshada heer gobol iyo xafiiska arrimaha bulshada degmada waxaan u taaganahay u magacaabanahay shacabkaana u magacaabanahay ama maxaasa joogo ama buurburta ha joogo ama dalaalaqsi ha joogo ama batabaan ha joogo ama beledweyne ha joogo anaga shacabkiisa u taaganahay cidiina soo wargeliso waxaasan wadaan dhalaane waa baxsataan waa sheegayna markaa wax waxa la keen waa bilaanayna inta aan soo marin taraada magacaad ma barqa ma soo barin ma ka barhayn anaga waxaan sheegayna markaa waxaan sheegi karaa itusi taabsi wada caalamka kormeerkan maanta Sheekh Xuseen Cismaan Cali uu ku gaaray xirooyinka barakacyaasha ee duleedka magaalada Beledweyne ayaa wax badan ka bedeli karta xaaladda dadka barakacyaasha maadaama dhowr mar oo sii horeysay Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo sidaan oo kale socdaal shaqo ku tagay xirooyinka barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Beledweyne wuxuuna xilligaasi hay'adaha ugu baaqay inay gargaar la soo gaaraan hadalka gudoomiyaha ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa waxa fuliyay qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala magaalada Beledweyne Cabdinuur Cusmaan Adan Carays Wadan Radio and TV Beledweyne wafdigan uu horkacayay gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar iyadoo wafdiga markii uu Jowhar soo gaaray loo galbiyay goob gaar ah oo loogu talagalay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dawladda ku meel gaarka ahayd Cali Cabdullaahi Cosoble iyo gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan ayaa ugu horeyntii madasha ka hadlay hadda waxaan go'aansanay inaan imaano Jowhar si uu dib ugu bilowdo shirkii maamul samaynta labada gobol إن شاء الله تعالى وأنا رجينا إنه جول كل ما هذا لبى قبل أو أيقو دتك دجان كوهو أي أنت ومحوها يهين دد ولا لا شليتنا رنتي إن عرمها إس أفجر واجا أما واحد مجدي كان مركي يدعينا واحد يرر شبه الله دحى إن إد كل هاين معها ورر شبه الله دحى كمان إيمان محوها أيقو إن واحد قال أما واحد مجدي أما وحي أيدين عرر هيران أيقو طبتين لكن waxay mid dawladda dhexe iyo wasaaradii howlaha ay waxa ay qaabilsanayd xaqiiqatan waxaan leenahay hawshii waa bilaabatay insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo labada gudoomiye loo hoos fadhiyaa warkaas fiican oo loo maqlo shaqada labada gobol labada gudoomiye loo hoos fadhiyaa gudoomiyaha maamulka gobolka dhawaan oo soo gaara gobolka
ayagaa hawshii loo xil saaray wasaaraddana fududeeyayaal waaye warkaas in si fiican loo fahmaa la rabaa wasaaraddu shalay iyadaa hogaaminaysa laakiin maanta hoggaanka labada guddoomiyaha iska leh wasaaraddan waxay fududaynaysaa habsami u socodka hawsha maamul usmeynta labada gobol madaxa arrimaha bulshada gobolka Hiiraan ayaa gaaray magaalada Beledweyne waxaana uu ka hadlay maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Bashiir Cabdullaahi Cismaan madaxa arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa maanta waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee ku yaala magaalada Beledweyne iyadoo soo dhaweyntiisa ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah shacabkii soo dhaweeyay oo ka hadlaya in uu gudoomiyaha maanta mid magaalada Beledweyne magaalada mid degmada mid u doomisay dhow kaysayeen u yahay inaan inta wax badan lahayn sidaas daradeed oo soo dhaweynayna haddaan nahay bulshada reer Beledweyne assalaamu calaykum gudoomiyaha maanta waan naga maqnay ilaahay soo aruuriyay dalkiisa yimid maadaama aan ka warqabnana inta u timid ka badan imaalaheed marka yaa lagu doomiye wadankaada timid ku soo dhawow madaxa arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa waxa uu sheegay in dhawaan shirka maamul sameynta gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu bilaabi doono asagoo sheegay in loo baahan yahay in ay iska kaashadaan shacabka labadan gobol sidii loo dejin lahaa maamul sameynta gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe alxamdulillah yani maanta waxaan ku soo noqday gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne muddo 2 bilood waa ka maqnaa gobolka يعني مقدرت سيدا المعمول سمينتا لبدا غوبل oo kale aragtida aan marka ay bulshada riiriya ay ka qabaan waa ka hadalnay sida hiigsiga 2016 oo hadda rajeynayno bisha October 14keeda inaan qayb ka nahay labada gobol Shabeellada Hiiraan iyo Banaadir lagu martiqaaday runtii arintaasna aadan ugu mahadcelinaynaa cidii ka soo shaqeysay dadka riiriya marka waxaan leeyahay marka fursad markaan xalay hoos u soo daadagto bulshada riiriya ku dhaqan gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Beledweyne shaqooyin badan aan weeyaan shaqooyin badan aan weeyaan waxa mar dhow insha Allah wasaaradda arrimaha gudaha ay qorshaysatay in guddigii farsamada ee maamul sameynta labada gobol mar dhow lagu dhawaaqo bisha October gudaheeda awalkeeda wal gaar ahaan waa qorshaha wasaaradda arrimaha gudaha ay marka ay qorshaynayso waay markii guddigaas lagu dhawaaqo kadib shaqa bilaabanayso waxaan ognahay in halkan Google ay fasaneed muddo 5 bilood ku dhaw oo wali ergooyinka ay fadhiyaan in Google-shaas la xoojiyo loo baahan yahay in midnimada riiriga lagu dadaalo loo baahan yahay in horumarka gobolka Hiiraan lagu dadaalo loo baahan yahay in bulshada isfahmaan loo baahan yahay maamulka in isfahmaan loo baahan yahay maamulka marka hadda runtii maamulka heer gobol iyo heer degmo shaqo badan ay sugayso waxa looga fadhiyaa shaqa looga fadhiyaa xilligan anaga diyaar u manihi inaan gadaal u noqonay iska qabsi iyo waxyaabo aan habbooneyn xilligeeda ma xilligan waxa la taagan yahay in la soo tanaazulo Beledweyne iyo qaybaha kale ee gobolka Hiiraan waxaa ku nool dad badan oo soo barakacay kuwa oo qaarkood soo barakacay wadanka Yemen waxaana uu tilmaamay madaxa arrimaha bulshada in ay la kulmeen hay'ado kala duwan isla markaana dhawaan ay gaarsiin doonaan waxyaabo kala duwan hay'ado badan oo la kulmeen waa jirtaa xiriir badan aan la sameeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradaha ay qusayso arrimaha bulshada waa xiriir baan la sameeyay sida wasaaradda shaqada arrimaha bulshada sida wasaaradda caafimaadka sida wasaaradda waxbarashada sida wasaaradda arrimaha gudaha sida wasaaradda beeraha runtii ballan qaado badan way jiraan hay'adaha inta joogin insha Allah hadda maalmahan aan joogno kulma degdeg aan la yeelan doonaa waa ka warqabnaa baahida ka jirta bulshada reer Hiiraan gaar ahaan barakacayaasha waan ognahay qaxootiyaasha Yemen ka soo cararay dagaalka Yemen ka soo cararay xaaladoodan ka warqabnaa waxaan ku qasbannahay inta aanan maamul u sameyntaas iyo hawlaha lagu soo aaday inta aan lagu gelin waxaan diiradda saari doonaa aan ka hadli doonaa sidii dadkan gargaar ay u heli lahaayeen sidii dadkan ugu gurmi lahaay taasaan culays ka saareen arrinkaaga maadaama su'aashaada hadalkan ka soo yeeray madaxa arrimaha bulshada ee ku aadan in ay taakulayn doonaan dadka barakacayaasha ayaa waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadka soo barakacay oo in muddo ah ku noolaa xerooyin ku yaala magaalada Beledweyne Bashiir Cabdullaahi Cismaan telefishinka caalamiga Somali Channel Beledweyne wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ahna gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa maanta booqasho ku tagay dadka ay abaaraha ku saameysay deegaano iyo tuulooyin hoostaga gobolka Hiiraan deegaanada uu tagay waxaa ka mid ah deegaanka Deefo 35 kiiloomitir u jira magaalada Beledweyne Jeere Qarsooni Bacad Buuke Arcadey Tawakal iyo deegaano aad u fara badan warantii waxa halkaasi ka hadlay dadka ay abaaraha ay ku saameysay oo ka warbixiyay xaalado kala duwan inuu noo yimaado gudoomiyaha arrimaha bulshada Sheekh Xuseen
وسودوينينا ومركي نوجه رئيس السمام دقمة البلوين أما إهن قبل كأسنوي ماد كنتي ماشان بلشو بدنا كنا الأطولين وجري ها هي أدها مرة وهذا عطسي وجيسنا دين تكنا وهي مرة بين وصوح الدمرية ماشان ما لقي كرامة مركا واحد بدنا أفر سنة ماشان وهي أدها لو وقت مجرى يبقى توين بدنا جرو سامين تأبارتا دد يدويب وساميس مركا عذرنا إلا وانا جاهي لكن سامين تأبارتا طالو سيجار دفع وهايستو وعي كم تأيدو بركة عدي ما تبدا كذا عدي واحد الجار نسوق جاري وحنا كعصينا بدأ كوار تبوندن ولا حريدي ما ده اللباد هي ما هايسنو هيدي وسيلة بركة عواد فيه هي وبهنا برسول بس قحان قلبي وح الله لو وحي دبعته هراي صدقنا قال على كرو أنت سوبهنا سيدة الله هروك محكوش برسول بس أنا هاي سيدة وقحني وحنا إيمانه هي أب ملها أرنا واقع تجلودنا وإحنا واقع نقوم واقع بس على ضدنا واقع والسؤال داويني دلك يا إسكالي كان قبيل كديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي كان ديدي هوشتاري كان لعب كتور سنو وحكستا وتقاتو وديك جري دحدي سالي وسؤال داويني ذلك يا إسكالي وسؤال داويني ذلك يا إسكالي كنتشي يا قونتو تدكو كأفلحانو دابع تعليم تاريخ